hadda waxaan u maleynayaa 2021 ku soo koobantay 2020 waa ka soo tagtaa u maleynayaa doorashada 2021 in la yiraahdo yaa ilaaha boon caawa halkan waa isu nimiday shirkan waxaan ku falanqeynaa amuuro badan waa ka soo tagtaa u maleynayaa oo ku saabsan dalka iyo directionka ama jihada ku socdo caawa halkan waa isu nimiday shirkan waxaan ku falanqeynaa amuuro badan siyaasadda gaar ahaan dalka doorashooyinka waxaan runtii caawa halkan isugu nimiday bal inaan ka hadalno meesha ay marxaladda doorashooyinka dalka ee muddada soo socota maanta ay marayso waxaan rabaa inaan ku bilaabo hordhac ahaan dhowaantan waxaa shir hay-adda heritage isugu yeerta ka dhacay magaalada Garowe halkaas oo ay isugu tageen siyaasiyiin badan muhiimadii ay isugu tageen laakiin hadda shir siyaasadeed aanay ahayn laakiin maadaama meeshii la isugu tago la wada joogay madaxweynayaal dawlad goboleed ay joogeen dawladda federaalka madaxdeeda qaar ka mid ay joogeen baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka oo madaxdooda ay joogeen murashaxiintii muxuu ahaa in badan oo kamid ah ay joogeen yaa uun meeshii waxaa ka dhalatay warwaaba la wada joogaaye ma taladii wax la iska yiraahdo annaga midowga murashaxiinta haddaan nahay initiative aan qaadanay waxaan u tagnay dadkii dawladda noo ahaa haddii ay yihiin dawladda federaalka ah iyo haddii ay yihiin dawlad goboleedyada madaxdooda meesha joogtay meeshaa waxaa joogay madax labadaas heer ah waxaan u geynay tala soo jeedin in amuurihii doorashada maadaama la joogo meesha wax la iska yiraahdo way naga aqbaleen soo jeedinteennii waxay dhaheen waa talaan iskula noqonaynaa wixii aan isla soo garanana waa idiin soo sheegi doonaa haddii aad tihiin murashaxiintii guddi aan ahayn murashaxiinta meesha joogtay golahan ka tirsaneed ay magacaabeen oo direen habeen iyo maalin kadib waa noo yeereen waxay noo sheegeen in ay aad iyo aad isu soo fahmeen ay laba arrimood laba talo oon annaga u dhiibnay markiiba ay aad u falanqeeyeen oo ahayday inay meeshaan heshiis ku gaaraan waxyaabihii laysku haystay doorashada ka taagnaay kadibna ay kula noqdaan raggoodii iyo inay iclaamiyaan madal laysku imaanayo waxaa lagu xallinayo si dadka Soomaaliyeed ay rajo ay u muuqato in wixii hore u socdaan madaxdii markay soo shirtay waxay nagula soo noqdeen noo sheegeen saddexdii qodob oo ugu taagneyd oo ahayday guddiga doorashooyinka qadiyadda Somaliland iyo qadiyadda Jubbaland ee gobolka Gado saddexdaas arrimood ayaan arrimaha taagnaay isfaham fiican inay ka soo gaareen oo ay maxaan ku raadaay isaga soo garteen guddigii maxaan ku iraahday doorashooyinkan wixii ka qaldan in laga saaro arinta Somaliland in ay reer Somaliland inta isku yimaadaan wax isla ogol yihiin ayagoo ay consensus ku yihiin wada ogol ku yihiin inay la yimaadaan sidaas doorasho ay ku galaan iyo arinta muxuu ahay Jubbaland gobolka Gado oo ayadana ay dib ula noqonayaan madaxdii muddo 3 maalmood ana inay jawaab nagu soo celi doonaan oo ay finalka noo soo sheegi doonaan khaasatan arinta gobolka Gado khusayso nasiib darro waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego madaxdii naga soo tagtay ee Garowe nooga soo tagtay ee 3 maalmood oo muddada naga qaadatay naguma soo noqonin jawaab naguma soo celinin markaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo raggii kala dawlad goboleedyada naga maqnaa markaan u nimiday oon arrintii u sheegnay sidaana la isla gartay nama ayan dhihin naguma soo war celinin bannaankan ka maqalnay murashaxiinta doorasho ma ogola iyo intay diidan yihiin iyo waa u sheegnay iyo liiskii keenaan dhahnay iyo waxyaabo sidaas oo kala waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in ayaduna u sheego qadiyadda maanta taagan qadiyad oo makaanika ah oo bakeerigan inta ka qaada inta dhig amaha waa qadiyad process ama muxuu ahaay wadiiqo inay marta laga rabo kalsooni u baahan wada ogol u baahan maxaan ku iraahday isfaham iyo muxuu ahaay is-aaminaad u baahan waay marka arintaasi waxay ku habooneed labadii talo soo jeedeen mid kamid ah jirta hadii wax la soo garto xataa in la qaabeeyo oo shir inta la isugu yimaado shirkaas maxaan ku iraahday lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yiraahdo intaana saasa u garanay halkaan waa noo dhiman tahay ama waa dhameystirna la yiraahdo nasiib darro ma ayan dhicin annagoo wali sidii uga dhur sugayna madaxdii maanta waxaad aragtay ayay sii daayeen waa yimaadeen warkaad aragtay oo qaarkiis aan u qaadan karno annaga qadaf inuu yahay waa laga soconaa looma baahna waa la yeelaa iyo wax la mid iyo walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno haddana midowga murashaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay Somaliland naga maqan
gooniya isu taagnay leh wada xaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayay qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay berri inay yiraahdaan sababi karto dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo maamul hebel ka maqan la leeyahay in la qabto suurtagal ma aha midnimada dalkaanay dhaawacee wadajirka ummadday dhaawacee dowladnimadeenay dhaawacee marka arrintaas waa qodobka kale waxa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra'iisul wasaaraheenna oo u weyn yahay iyo madaxda dowlad goboleedyada ee maanta la taagna siday u dhaqmeen sax maaha waxaan qabnaa kuwaas waa maqan yihiin waa laga tashanaa waa laga soconaa laleeyahay oo aan leenahay war midnimadii ay wax u dhimaysaa ayaan saa la yeelin kuwa kale ee saaxiibada ay maanta taagnaayeen ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma maalaan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha mana ku habboona walaxanay dadka ku mataleen inay sheegaan ma habboona in ay madaxweynaha maanta fadhiyo ayaan kursiga u soo boobaynaa u soo dhacaynaa dadka annagaa soo gacan maroojinayno in la yiraahdo sax maaha madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leenahay qaarna waa laga maarmaa inaad tiraadid qaarka kalena ciidamaan u daabulaan u geysanayo maxaan ku iraahdaa xoog dadka iigu soo afduubayo nimanka odayaasha ay maanta la taagnaa saaxiibadaana ay raalli ku yihiin dadka Soomaaliyeed ee deegaanada ay dowlad goboleedyada maanta meesha jooga ee matalaan raalli kama arrintaas lamana boobi karo ciidana laguma boobi karo haddii shalay doorashooyin qaarkood xoog iyo ciidan lagu boobay tani intii hore waa ka weyn tahay ha loo gogol dhigo ha loo tartiibiyo ha loo dhimriyaan leenahay dalka in la isku haayo ayuu u baahan yahay madaxweynaha dalkaanoo la ishaysto isla jiro israbo isla fadhiya meel go'aano wada jir ah gaaro ayaa shalay lagu wareejiyay dadka iyo dalkiina inuu isku haayo oo sidaas ku sii xukumo hadduu joogayo oo si sharci ku joogayo haddii aanu joogaynina dalkii oo ishaysto iyo deegaanadii oo ishaysto mid ah oo wareejiyo ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha gadaal inuu inta fariisto dadka Soomaaliyeed inuu la hadlo oo diido dadka maxaan ku raadayay saamileyda ee siyaasadda doorka kule inuu la hadlo oo diido ee dad kale sidii ruuxaantii oo ka soo dhaxadla madaxweynaha xal uma keenaysa waxaan leenahay madaxweynuhu ha ku noqdo taladaas dib ha u noqdo oday Soomaaliyeed aan noqonahay hadda ka hor dad ka ballan qaadee wuxuu ballan qaaday ha fuliyo oday Soomaaliyeed ha noqdo ha soo dego dadka ha la fariisto askarta iyo hubka maalin walba la sii daabulayo shalay iyo daraadii usbuucida hore maxaa gadal lagu daabulay shalay iyo maanta maxaan ku iraahdaa hiiraan lagu sii daabulayo daraad intii ka horeysay maxaan ku iraahdaa dhuusa mareeb lagu sii daabulay maxaa loo daabulaya loo geynayaa doorashada in lagu soo dhaco waay maamulada meesha joogaahay aamuslaantooda waxaan u qaadanaynaa hana loo keeno askar waxa aan ku dhacnay inay ayaguna dhaheen madaxweynuhuna uu sidaas rabo ma suurowdo ma dhacayso suurtagal sina kuma aha marka arrintaas waa qatar hadda ka horna waa sheegnay annaga qadiyadda aan madaxweynaha uga ra'yi duwanahay doorasho kaliya ma aha dalka inuu qatar ku jiro waay midnimadiisii inay qatar ku jirto waay in maxaan ku iraahdaa wadadaan ay ku dhamaato meel aan fiicnayn waay waxaan leenahay ha la soo noqdo xalku markii intee jira xalku wuxuu jiraa in la wada fariisto oo la wada hadlo oo qadiyadda taagan waa masiiri waa ummadan mustaqbalkeedii waa dalkan midnimadiisii waa isku hayntii ummadda kalsooni abuurkii dib u heshiisiintii muddada la soo dhisaayo oo la sii xoojiyo waaye in boogihii la danqiyo oo dib loo dhaawacayo maaha dadkan meeluu soo gaaray lama dib looma celi karo lama waxayn karo iyo warka maxaan ku soo celcelinta ah sagaashanka loo noqonaha la yiri kan iyo waa caddayn haddana waa cadday sagaashanka cid u noqonaysa male cid u noqonaysa ciddii khaldan maanta gacanta laga qabanaha naga joog laleeyahay moogiye dalkaani hoog iyo halaag kale uma noqonayo ummaddaana waa ka timid meeshaas caqliga ummadda iyo dareenka ummaddana in loo gafa ma aha oo la yiraahdo wax ma garataan la yiraahdo ma aha marka waxaan leenahay walaalayaal midowga murashaxiinta taladiisu waxay tahay xalka ha loo noqdo gogol ha la isugu yimaado dadka ay khusayso oo talada lahoo dhammu annagu aan ka midnahay ha yimaadaan caalamkana garab taaganee maalin walbana kaalmaynayo ha soo fariista meesha ha joogo
meel loo wada dhan yahay fagaaro ah wax la qariya ma aha wax weyn waaye meel la joogo fagaaro ah arrintaas ha looga wada hadlo ha looga heshiiyo hore ha loo socdo waxaan rabaa qadiyada kale oo raba inaan ka hadalno oo aan maanta arrintan meesha uga hadlo waxay tahay waxaa baryahan suuqa la geliyey nimankan murashaxiinta ma rabaan doorasho 8 February in la gaaraa la rabaa kana la rabaa war annaga sidaynaba tala xumo iyo hoog kamaba talinaba dadkii ka tali lahayna ma ahin dalkaanon meel u jihaysan 8 February in la gaaro cidda mas'uuliyadda ka maanta haysa horta mas'uulka annaga mas'uulka ma ahin shalay heshiisyaal la galay dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 3 dhuusamareeb shalay waxa la lahay waa laga soconaa la lahay ayadoo dawlad goboleedyada qaarkood maqan yihiin waxa xaqiiqo noqotay inaan laga soco karin muqdisho la isugu yimid bishii September waa la heshiiyey heshiiskii waay maanta dhaqan gelintiis wax la isku haysto nasiib darro dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waay heshiiskii inuu dhaqan galo waxa diidan waa dawladda federaalka waay iyo intii muxuu ahay inay wax u hoosaasisan rabto iyaga waaye waxa dalka ciidamada ku daabulaya doorashada in la boobo in la xoogo in la dhaco oo murashaxiinta mid kamida oo la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in wax loo dhaco wax loo boobo rabaan war ummadan masiirkeeda lama dhici karo hertii lama ordi karo kuwa rasaas ku haminayna ka joogan leenahay madaxweynahana ka joogan leenahay dalka 8 February annagu taariikh qoran oo dastuuri oo meel taalo waa laga guuriyay muhiim ma ma dhahayno laakiin xalaan rabnaa wax socdaan rabnaa doorashadii aan rabnaa oo si sax ah ku socotaan rabnaa haddii doorashadii si sax ah ku socoto 8 February ay nala dhaafto waaba socotaa waaba ku dhex jirnaaye maanaga ka dhex qayli karno laakiin doorashadii la bilaabi ma 8 February ay rabaana dadka lagu eedeyna wax kale uma aragna ee waqtiga in la si durgsado in la rabaan u aragnaa hadday dhab ka tahay 8 February in la gaarin ama 8 February iyo agagaarkeeda wax socda inay ku soo dhamaadaan hadday dhab ka tahay wax sax ah la bilaabi lahay dawladda madaxweynaha iyo wiilasha u shaqeeya waxaan leenahay 8 February haddii balaaya dhacaysa adika keeno haysaan dalkan 8 February doorasho inay dhacday ahayd haddaanay dhacaynina walba inay soo muuqatay wadada ku soo jirtay inay dhacaysay ahayd 27 December baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha waqtigiisina waa 8 February asalka waxa ana waa baarlamaanka haddaan baarlamaan jirin ama 8 February madaxweyne la doorana ama 8 June iyo July iyo December 2021 xataa ama madaxweyne la doorana haddaanu baarlamaan jirin baarlamaanka iyo doorashadiisa waaye mas'aladu waxay ka taagan tahay waxa in la dhacal rabo ciidamada kor iyo bari loogu daabulayo diyaaradaha loogu qaadayo na waa arintaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan rabnaa bis mowqifkeena wuxuu yahay war walaalayaalow wax la dhici karo wax la boobi karo ma jiraan dadkuna raali kama ahe intaan ka wada tashano wax Soomaali isku raacsan tahay keena oo annaga hadaan rabina awalba waa naga tagi jirteen idinku isku soo raaca laakiin adikana idima rabno murashaxiintii iyo mas'uuliyiintii haddaad tihiin annaga dhaxdaynana isma rabno koox yar oo iswadato maxaan ku raraa suuq madow ahaa meelaha wax ka bixiso masiirka ummadda Soomaaliyeed suuq madow kuma socon karo afarnimo isjecel ma wadi karaan afar maxaan ku raraa hoosta muxuu ahay balaayo uga heshiis ma wadi karaan alla dhiga xaajada madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoonka baarlamaanka iyo cid iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka waxaan leenahay ha noqonina ninkii yiri hilibkii madaxa inta saartay hilibka hal qaybiyo war dhulka soo dhig waa la qaybila hilibka laga kala ma hal qaybiyo madaxana ku siisatay hilibkii ha noqonina aan leenahay xaajada dhulka soo dhiga waa laga wada tashana waana lagu heshiina waana lagu nabadooba waana la isku jeclaana la isku nicmaayo waxa qaanuunku qabo sharcigu qabo dadku rabaan la isku manaco aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale waa ku celinaynaa waxaan leenahay doorashada iyo mustaqbalka iyo masiirka ummadda iyo dalka midnimadiisa waaye waxaan ka hadlaynaa hebelaa xagga looxada iyo hebelaa loo jamhuuriya hebelaa sitoo laga soo dhigaa iyo ma ahan doorashadaani dalka qatar ay geli kartaa midnimadiisa ay qatar geli kartaa dawladnimadeena iyo gobnimadeena sovereignty-geena ay qatar geli kartaa wax sahlan ma ahan yaan la dhayalsanin ummadda Soomaaliyeedna dhagahoodii indhahooda ha taagnaado hana foojignaadaan aan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
haddii dawladdu wixii maanta ay ku dhawaaqday inay sii waddo ay go'aansato ay ku adkaysato wax fiican maaha waana waxa aan ka digayno aan diidayno annagu markaas tallaabo kalan qaadi doonnaa annagu tallaabada aan qaadi doonno waxaan rajaynaynaa inaan loo baahanin oo aanay imaanin oo miirku dawladdu intuu soo noqdo ay doorashadii dhulka soo dhigtaan rajaynayaa xal dhiman maba jiraba aan ka tashano wixii dhulka la soo dhigay aan ka heshiino xalka ka weyn waa maandhay adaa ii sheegaysa hadaa haysid